application kan waxaa la yiraahdaa Duolingo. Application-ka Duolingo waxaad ka baran kartaa luqado aad iyo aad u tiro badan. Luqadahaasi way noocyo badan yihiin. Hadda anigu waxaan isticmaalay account markaa mid cusub aan furtay. Waxaasoo dhan hadda waxay u baahan yihiin inaan barto. Okay, luqadahaad ku baran kartaa xaganaad ka heli kartaa. Aad course waan odhanayaa. Luqadaha sare Carabi baad ku baranaysaa. Kuwan hoosena English. Luqadahan hadda aad aragto dhammaantood halkan ayaad ku baran kartaa. Imika tusaale Faransiis baan baranayay, waxa aan ku darsanayaa Turkish. Aad course baan odhanayaa dan marka aad ku darsato waxa uu ku weydiinayaa hore wax uga soo baratay iyo inaad imika ku cusubtahay in kale. Waxaan odhanayaa waan cusubahay. Continue ayaan leeyahay. Kadibna waxaa markaasi uu idhahgeenaya galaaska aan ku baranayo. The first marka ugu horeysa waxa lagaga bilaabayaa ereyada ugu horeeya ee markaasi bilowga ah. Line-ka green-ka ah marka dhammaysid buuxiso ayaa markaasi koorsadu si toos ah kugu bilaamaysaa. Aad markaasi u dhigan kartaa si markaasi caadiya. Hadda halkan waxa uu kugu sheegayaa which of this abal keeba tufaaxa intan uu kugu dhawaaqaya qaabka Turkishka loogu dhawaaqo. Check baad odhanaysaa saasay sax ku noqonaysa. Sawirada codadka iyo markaasi tilmaamo intooba markaa waa ay ku hagayaan. Okay, bal aan ku noqono midii hore markaasi aan baranaynay ee ahayd France. Back baan ka odhanaya koorsadan egas baan taabanayaa. Waxa aan ku soo noqday qaybtan. Okay, basic qaybta koobaad oo dhameeyay. Greetings salaamaha way xiran yihiin. Basics way xiran tahay. Tan aan markaasi dib ugu laabto start baan odhanayaa. Kadibna waxaa markaasi ii baastay ama ii raadinayaa qaybtan dhiganayay. Which of this is the woman? Gabadhu waa tee ama qofka dumarka ah. Waxaan odhanayaa waxaan ku dulfanayaa taa markaa gabadhu ku sawiran tahay. La vie yani Faransiiska waa inaad barato weeyaan. Ay qalad weeyaan waxay ahayd la femme taas ahayd sorry la femme taas gabadha was xariifin mood continue wada odhanaysaa. Which of this the girl? Gabadha waa tee tii markii hore aan ku qaldanay baan gabadha odhanaa marka waatan markii hore aan ku dhacnay moogti. Okay, excellent waa sax. How do you say woman? Gabadh sidee baad odhan kartaa? Femme femme ja wala waa asal. Un garçon et une fille waxa weeyaan waxaad odhanaysaa inta ugu horeysa waxay u taagan tahay marka aad dulfato xarafka ay u taagan tahay ku tusaya waa ama one ama markaasi ani ay u taagan tahay baan odhanayaa. Boy baan raacinayaa. Aan ayaan raacinayaa. Kadibna waxaan raacinayaa icha wartaas cusub tahay anaga waxa weeyaan one kuma jirto meesha kale ku jirtay neon walayn ku qor kadibna girl bal hadda check ma dhahda good saas sax ku tahay. Un garçon et une fille. Garçon waa gabadha iyo markaasi waa wiilka iyo gabadha continue wada oranaysa. Application kan isagana waxa la yiraahdaa Memrise la yiraahdaa. Memrise application kan isagana luqadaha aad ka baran kartaa. Hadda aan weli hore ma gelin kii hore soo dhigtay laakiin hore ma gelin. Big language to learn maranaya hadii account hore la jirtana already I have account baad xagan ku qoraysaa account ka gelinaysa. Big language baan odhanayaa. Halkan waxa uu soo dhigay luqadahan inta luqado ka baran kartaa. Xagga sare waxa ku qoran I speak luqada aad ku hadasho iyo halka ku soo gelinaya yani Soomaali kuma jiro imika iska eego Soomaali kuma jiro waa in luqadan kale ku hadasha. Xaggan hoosana I wanted to learn ay ku qoran waxaan doonayaa inaan barto dad Carabiga baranayso Chinese ka Danish ka Dutch ka French German Italian Japanese waxaas oo dhan baad baran kartaa. Luqadaha inta badan waan xiiseeyay inaan barto waxa kamid ah Turkishka marka iyo Faransiiska marka hadda bal waxaan dooranayaa Turkish baan dooranayaa ma bilowba tahay mise dhexdhexaad meelahaas baa lagu leeyahay beginner baan ahay fawrada Turkish maaraga kadibna markaas ayaad account samaysanaysaa. Halkan waxaan ku xiri doonaa kan hadda Facebook laftiisa ku xiro no problem. Barxada samay qoran xaggan ma ku xiri doonaa Facebook hadii Gmail aad leedahayna Google baad ku dulfan doontaa ku xiri si manually oo samaysan kartaa sign up with email baad oran doontaa.
waa ka halkan soo saaray set up learning reminders waqtiyada lagu soo xasuusinaya inaad barato iyo ayaamaha aad baranayso iminka sabti ilaa iyo markaasi axad sabtida iyo markaasi ayaad free ahaanaysaa inta kale waad baranaysaa continue baan oranayaa qaybtan waa lacag maybe leera ayaan oranayaa kadibna waxoogaa baan sugi doonaa inta la hinshan garanayo marhaba hi eg marhaba waa hi weeye marhaba halkan waxaad oranaysaa okay gaarayd baad oranaysaa evet waa yes evet waa turki baad baranaysaa marka waa yes weeye okay gaarayd baad oranaysaa markis marhaba maktab tii aad hore soo baratay hi baad xagga hore kugu soo qoray marhaba ayaad ku dhufanaysaa marhaba great saas waxaa ku tahay evet waa yes hore soo baratay waanaad baratay weeyaan higher waa no higher okay gaarayd baranaysaa yes baad halkan ku qoraysaa markaas yes baad qoraysaa evet saas ayaad soo maa evet good higher waa no higher baranaysaa marka lagula hadlo turkiga higher waxay ahayd marhaba marhaba waxa weeyaan hi no waa sidaad kaad baasha iskiibaanska odhanayaa halkaas ka baran karta waa iska easy weeyaan evet haddaan ku tudulufto gaaray saasan wax cusub baan markaasi aad baranaysaa dhamaystiraysaa hi marhaba saasaan ugu dulfanayaa qaybtaas aan ugu dhamaystiro qaybtaas saas u dhamaystirantay word and phrases baan kasii dooran doonta markaas qayb cusub ayaad u gudbaysaa markaas never WhatsApp halkaas ka baran karto applications ka fudud luqadahana markaas aad ka baran karto easy